kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteennii faaqidaada waxaana daawadayaal maanta oo barnaamijkan uu xasaasi yahay aan kuu soo qaadan doonaa qodob aad u xiiso badan oo ah in dowladda uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha guud ee ciidamada nisa ninka lagu magacaabo mahad salaad iyo qaar ka mid a xubnaha xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xamse cabdibarre ay diyaarinayaan kiis ka dhana xisbigii la odhan jiray nabad iyo nolol kiiskan ay diyaarinayaan waxaad daawadayaal aad la socoteen oo arrintan xaqiiqa ay ku tahay in hanti dhowraha guud ee qaranka soomaaliya uu dhowaan shaaciyey in 96 malyan ay dhunsadeen tiimkii uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo gaar ahaan xisbigii la oran jiray nabad iyo nolol oo inta badan haatan ku sugan daawadayaal magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga haddaba waxaa jira shirqool lamid a ayaa jira oo ah dhanka kale in kooxda nabad iyo nolol laftigeedu ay wado shirqool ka dhana ra-iisul wasaarihii hore ninkii lagu magacaabi jiray roble oo asagana laga dayrinayo xaaladiisa kadib markii doctor ninka lagu magacaabo cabdiwahaab uu dalka kenya uu ku furay dacwad taasi oo haatan la doonayo in si qabiila loo dhexgalo arrintaas oo la sheegayo in professor cabdiwahaab uu ka biyo diiday in arrintaasi xal qabiil lagu dhameeyo daawadayaal waxaa magaalada wajeer ee dalka kenya ku sugan madaxweynihii hore ee deegaanka lagu magacaabo galmudug ninka lagu magacaabo cabdikariin xuseen guuleed inuu haatan ku sugan yahay magaalada wajeer oo uu la kulmay beesha uu kasoo jeedo brof cabdiwahaab si uu arrintaasi kiiska looga soo celiyo maxkamadda arrintiina loogu dhameeyo xal labada beelood ee magaranaysa labada nin ay kasoo kala jeedaan wada qanciya arrintaasi waxaa la sheegayaa in uu ka biyo diiday barofka oo arrintaasi uu ku yidhi arrin qabiil ma aha dhanka kale kiiskaasi ay nabad iyo nolol laga diyaariyey waa kiis khatar oo la doonayo waa laba kiis oo ishuwan oo la doonayo ikraan tahliil iyo gabadhii lagu magacaabi jiray allah u naxariistay aamina iyo weliba kiisas fara badan iyo weliba lacagta faraha badan ee la dhunsaday in laftigooda maxkamad lagu soo tago arrintaasi si weyn loo galo iyagoo looyaro waaweyn ka qabsaday guud ahaanba dunida haddaba kiiskan iyo arrimaha siday u socdaan waa arrimo xaqiiqa daawadayaal inta badanna waxyaabaha aan soo gudbino waad aragteen oo warbaahinta kale waxaa laga yaabaa maalmo kadib inay sheegaan laakiin arrintani waa arrin xaqiiqa oon mar walba idinku soo gudbino waxaan rajaynaynaa inaad saaxiibadiin aad la wadaagtaan oo aad sii sheergaraysaan si ummadda soomaaliyeed ay ugu baraarugto in siyaasiyiinta soomaaliyeed xilligii dalka soomaaliya ay horumar ay magaranaysaa uu tiigsan lahaa lana dagaalamaha kooxaha al-shabaab ee ka dagaalamaya koonfurta soomaaliya oo u midoobi lahaa ummadda soomaaliyeed haatan ay doonayaan siyaasiyiinta soomaaliyeed oo dhanka kale markii si la yidhaahdo qeybta dam jadiid ee haatan haysata xukuumadda iyo nimankii hore la oran jiray nabad iyo nolol inay haatan ku dhex dagaalamayaan guud ahaanba shacabka soomaaliyeed ee abaaraha iyo magaranaysaa dhibaatada la tabaalaysan haddaba arrintan waxaa indhaha ku hayay saaxiibkay gooni oo aan wax ka weydiinay faragodo waa mahadsan tahay haddaan ku hormarno horta kiiska dham jadiid ee diyaarisay waa mid aada u weyn marka koowaad waxay diyaariyeen hanti dhowraha qaranka oo 96 milyan in la lunsaday 2021 uu sheegay hadda maadaama uusan sheegin waqtigii dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo ay jirtay uusan ka hadlin kiiskaas hadda maxaa kusoo beegay marka 7 bilood uu sii maqan madaxweynihii hore su-aal isweydiin mudan waaye waxaana loo diyaariyey maxamed cabdullaahi farmaajo iyo fahad yaasiin iyo raggii nabadii nolol kala tirsanaa kiiskaas ayaa loo diyaariyey waxaa kaloo loo diyaariyey kiiska ikraan tahliil oo asaguna meelo badan inta laga soo dhodhoobay lasoo xirxiray kadib la diyaariyey asagana budget dheer laga diyaariyey ilaa bog weyn oo macnaha loogu talagalay in lagu fashiliyo nabad iyo nolol asagana laga diyaariyey marka labadaas kiis ayaa waxay diyaariyeen mahad salaad iyo tiimkiisa si ay uu shirqool ugu dhigaan madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo iyo fahad yaasiin xaaji daahir sababtoo ah waxaan waa siyaasaduna waa la isku legdaa marka qolo walba waxbay dhankeeda ka riixaysaa marka haddii aan soo qaadano ninka la yihahdo mahad salaad wuxuu ku dadaalayaa in xataa nabad iyo nolol aysan dib dambe isku soo abaabulin si sumcadda looga dilo oo hadhow xataa doorashada mustaqbalka ay u coobobaan marka lacagtaas hanti dhowraha qaranka hadda u sheegay oo 96 milyan ah shaki ayaa ku jiro maadaama waqti dambe oo leyd ah oo dowladdaas ay dhacda la sheegay in markaas la sheegay ay hadda wax jiraan oo runta markaas banaanka la soo dhigo midda kale kiiska ikraan tahliil haddii oo la baarayo oo xog laga sheegayo gabadha hooyadeed marar fara badan ay qaylisay aabaheeda qaylinayay nabad iyo nolol markii ay xukunkaysana kamaysan hadlin laakiin waxaa aada u dhaliilayay oo weerar ku qaaday nimanka la yihahdo badbaado qaran iyo dhamo jadiid ayagoo mar walba isku dayay inay fashiliyaan oo barnaamijka qoorta u saaraan fahad yaasiin iyo farmaajo markii kiiska ayaga ay ku fadhiisteen xilkiina aysan wax cad aysan ka keenin haddana waxay dhodhoobeen qaabkii loo dilay ikraan tahliil si loogu weeraro nabad iyo nolol marka wararkaas waa warar xaqiiqo ah
waana soo bixi doona maalmaha soo socda ayaa beejka lasoo gelin doonaa, lasoo baahin doonaa. Wararka anaga inta badan aan tabino isbuuc ka hor ama 5 beri ka hor markaan sheegno kadib warbaahintu sheegtaa, waxaana ugu wacan in aan xoga aad u sir ah ayaan helnaa mar walba. waxaana ka mid ah waxyaabaha aan baahinay Xamse Cabdi Bare markii la magacaabayay 5 maalmood ka hor ayaan sii sheegnay Xamse Cabdi Bare Wasaaraha Soomaaliya laga dhigi doono. waxaan kaloo sii sheegnay gudoomiyaasha gobolka Banaadir iyo Cali Racali iyo ragga lagu bedeli doono 5 beri ka hor ayaan sii sheegnay. hadda maanta wararkeena waxaan ku sheegnay in wasiiro la bedeli doono, isku shaandhayn la sameyn doono, ayadana maalmaha soo socda waa filan doontaa. hadda marka wararkaas oo dhan waa wax cad banaanka ayayna yaalaan. ayagana qolada kale ayagana waxbay diyaarisay oo waxay ugu talagaleen Professor Cabdiwahaab oo ah ninkii Kenya lagu xiray waqtiga Roble Wasaaraha ka ah Soomaaliya, in Roble lagu eedeynayo kiiskaas muddo fara badanna kiiskiisa maxkamad la geeyey, marna Sweden la geeyey, marna Kenya la geeyey. kiiskina oo balaartay Professor Cabdiwahaab oo nabad inoo taageersanaa in macnaha oo ninkii la yiraahdo Roble uu xiray. marka arrintii waa soo cadaatay, waan soo taraysaa mar ka dambeyso. waxaan ugu wacan in macnaha Cabdikariin Xuseen Guuleed oo isku reer ay yihiin Roble inuu hadda ku sugan yahay deegaanka Wajeer, halkaas uu kula kulmay beesha Cabdiwahaab oo kasoo jeedo si xaaladda loo qaboojiyo oo maxkamadda kiiska loogu soo celiyo, arrintan qaab reereed loo dhameeyo. marka taas caddeyn ay u tahay ayadana in ay shirqool isku dhigayaan nabad iyo nolol iyo dhama jadiid. marka waxaan ogaan doonaa waxa kasoo baxo kiisaskaas isdaba joogga labada dhinacna ay qolo walba dhinaceeda ka diyaarinayso. gooniyow waxaa la isweydiinayaa kiisaskan ee labada dhinac ay ka diyaarinayaan nabad iyo nolol iyo kooxdan hadda dowladda ku fadhida la yidhaahdo dam jadiid miyaa soo cusboonaysay oo dagaal ku qaadayso oo leh arrintan waxa weeyaan si aynan nabad iyo nolol isu soo abaabulin ayaan dagaal waa inaan kusii qaadno oo doorashada dambe ayaa loo sii xaydxaydanayaa, mise waxa weeyaan wax ka sokeeyaaba jiro oo waxaa la rabaa madaxweyne xasan sheekh iyo qoladan dam jadiid in lagu fashilay siyaasadda oo saaxada siyaasadda laga saaro miyaa la rabaa? horta tiim markuu meel haysto tiim kale inuu attack gareeyo isku daya. marka hadda attack ayaa lagu sii bilaabay si aan maalmaha soo socda ama bilooyinka sanooyinka ama halka sano 2 sano soo socoto maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisa ay usii niyajabaan oo saxaafadda ay macnaha marka waxyaabaha saxaafadda la soo geliyo dadku waa dad baraha bulshada ku xiran, intooda badanna waxay qiimeeyaan waxa markaas socdo iyo waxyaabaha ay baraha bulshada la soo geliyo qaabka isku daba joogaan. marka haddii nabad iyo nolol weerar lagu bilaabo hadda oo 1 sano iyo 2 sano soo socoto lagu sii wado, waxay noqon doontaa in sumcaddu ay nabad iyo nolol ay yaraato, awoodda ay hadhow tartan ku yeelan kartana inay cariiri gasho. marka dhama jidid waxay ugu tala gashay waa intaas, laakiin waxyaabo kale oo qarsoon hadday jiraan way soo bixi doonaan. laakiin inta muhiimadda ay saarayaan waxaa waaye in tiim nabad iyo nolol ay daciifaan, maadaama hadda ay Turki ku sugan yihiin, ayagana shirqoolo kale oo ka dhan ah dhama jidid ayaguna maleegayaan oo marna leeyahay waxay ka horjeedaan dagaalka al-shabaab lagula jiro, marna la leeyahay Cabdiwahaab ay soo bushgareeyeen maxkamadda kiiska Roble soo balaartay. marka waxaan waa attacking labada dhinac ah, waxaan waa siyaasaduna waa jaranjar, marba qof ayaa lagu moodaa. marka in qolo walba xirta in qolada kale ku moodo ay madax kaga istaagto markaas si oo u fashilmo. marka waa siyaasad guud oo labada dhinacba isku riixayaan si qolada kale sumcad uga disho. gooniyo waxaa la isweydiinayaa dhanka kale kiiskan hadda wuu soo cadaaday oo waxaa loo arkay ma garanaysaa in uu khatar ku yahay kiiskaas Sweden iyo dalka Kenya laga furay ra'iisul wasaarihii hore Roble lagu furay. sababta waxaad ka garan kartaa in Cabdikariin Guuleed oo isku beel ay kasoo wada jeedaan ninkaasi inuu haatan ku sugan yahay oo erga ka yahay ninka lagu magacaabo ra'iisul wasaare Roble. arrintana maxkamaddu si adag oo hoose ayay u gashay, waxaana la sheegaya dalkaasi Turkiga in laga keenay cadeymo fara badan oo ku aadan qaabkii ninkan loo shirqoolay iyo qaabka loo dilayay. haddaba arrintan maxay sababsan kartaa baa leedahay, maxay ku dambeyn kartaa maadaama maxkamadda dalkaasi Kenya iyo midda Sweden ba ay ka wada shaqeynayaan ninkaasi in ma garanaysaa lala dago oo dee hawshiisu ay adag tahay, maxay ku dambeyn doontaa? horta kiiskan waa kiis adag. Roblena marar badan ayuu yimiday waqti Cabdiwahaab, inkastoo Kenya isku arkeen. Roble Nairobi ayuu joogay marar fara badan yimid, reerkiisana Nairobi ayuu degan yahay. Roble markiisa hore Sweden ayuu degnaay, saan xogta aan ku helnay. marka kiisaskan mar walba la furayo culeys ay ku noqon kartaa. Professor Cabdiwahaab in la xiray oo xorriyadii laga qaaday oo muddo isbuuc xirnaay kaliya kuma andacoonayo, wuxuu ku andacoonayaa in isku day dil lagu sameeyey, xogta uu xuraansaday oo asaga dabagalayna ay lugta la gashay ninka la yiraahdo isheeg Roble. marka taas ayuu ku andacoonaa in isku day dil lagu sameeyey. marka ugu dambeyn waxay noqon doontaa in magdhow fara badan la siiyo Professor Cabdiwahaab maadaama asaga uu leeyahay waa isku day dil ayaa lagu sameeyey. marka kiiskan kiis culus ayuu noqon karaa, dhaqaale fara badanna wuu ku bixi karaa si ila tahay. marka Professor Cabdiwahaab wuu diiday inuu kiiskan maxkamadda ugu dambeeya ayuu ogol yahay si oo hadhow Roble maxkamadda loo soo taago go-aanna looga gaaro. laakiin dadka reerka oo ka dhashay oo loo yaqaano dagoodiga waxay leeyihiin aan kiiska aan si caadi u dhameyno,
dad iskhilaafay dad isqabsadayna aan ka dhigno xaaladan aan qaboojino ninka hadda ku sugan cabdikariin guuleed ee wajeer ku sugan way soo dhaweeyeen beesha dagoodi inkastoo beesha habargidar isaga ka dhashay waxay dhaheen labada beel waa un hawiye ayaan isku nahay aan isku soo dhawaano xaaladan aan qaboojino laakiin ninkan wuxuu leeyahay isagu wax shaqaa kuma lihi aniga kiiska maxkamadan kaga dambeynaa dib dambe oo aan kala qofka dambe oo kala hadlayna ma jirto marka waa ogaan doonaa kiisaskan labada dhinac isku wadaan oo jiid aan ku jiiday ah meesha ay ku dambeysay qoladii rayso labaduba waa ogaan doonaa wararkeena dambe ayaan ku baahin doonaa fargodow aad iyo aad baad umahadsan tahay adigoo kusoo koobahaya ninka lagu magacaabo gooni oo 1 daqiiqo qoladan soo lama dhihi karo nabad iyo nolol laftigoodu dee waa ay ka qayb qaadanayaan dagaalka waa ay ku jiraan xilli dagaalo lagula jiro kooxaha al-shabaab oo arrintaasi soo kuma keeni karto in ay arrintaasi wiiqanto dagaalkii lagu hayo kooxaha al-shabaab oo uusan horey usii socon oo ummadda soomaaliyeed ay niyajab ballaaran u keento hadda soomaalidu waxay dhahdaa qaniya kaa fujiso markii ay qolo kugu dhegan tahay adiguna waa ku dhegaysaa marka nin walba horta siyaasi wuxuu ka cararayaa in horta siyaasi kala gadaashiis oo wax noqdo oo nin fiican noqdo nabad iyo nolol waxay ka cararaysaa in xasan sheekh maxamuud uu dalka al-shabaab ka saaro qof iyo cod intuu gaarsiiya isaga oo kusoo baxo meesha waa micnaha waa siyaasadda siday tahay siyaasaddu saaxiib joogtaa ma leh laakiin dan joogtay leedahay marka xasan maxamuud sida uusan kusoo laaban lahayn mar kale ayay ka shaqaynayaan oo hadday dagaalka fashiliyaan iyo haddii ay micnaha kiis kale ku furaan oo isheeg rooble ku furaan oo dhan kale ay badbaado qaran meel kaga furaan way ku furi karaan way ku furayaan maalmo dhaweyd waa tiildhahay warar ayaa laga duubay iyo fiidiyoyaal laga duubay madaxtooyada oo Fahad Yaasiin la gaarsiiyey marka waxaan waa siyaasad sida la isku jilaafeyn karno waa la isku jilaafeynaa marka nabadii nolol dhinaceeda wax way ka wadaa waa sax dhamajiidna dhinaceeda wax ka wadaa marka waa dad siyaasad ahaan isku jilaafeynayo nin walbana dhankiis wax ka wado marka waxaan waxa lala yaabo ma ahin siyaasadda weligeeda la isla gdi jiray ninka la yiraahdo Ruto markuu madaxweynaha noqonay intuusan madaxweynaha noqon asaga iyo Uhuru wax dhex mari jiray iyo Raila waa la soconaa marka siyaasaddu mar walbaba waxay samaysaa in la isku xumaado meel xun la isla gaaro macnaha meesha ugu dambaysa la isla soo taabto ayaa la isla gaaraa tii marka tii ay ka dhigan tahay oo waxaan u malaynaa in labada dhinac ka mid guuleysan doono ama labada dhinac ba isla fashilmi doonaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gooni oo barnaamijkeena falanqaynta ayaan ku falanqaynaynay guud ahaanba shirqoolada ay isu maleegayaan kooxda dam jadiid iyo kooxdii ka horreysay ee nabad iyo nolol la odhan jiray maamuli jirtay dowladda federaalk ee soomaaliya hogaamin jiray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo daawadayaal barnaamijkeena inta ayaan kusoo gabagabaynayna wixii kale xooga kasoo kordhana barnaamijkeena dambe ayaad ku maqli doontaan sii shargaradiyo oo asxaabtiina la wadaaga aad iyo aad baad mahadsantiin